isagu madaxka xafiiska maareynta masiibooyinka dawladda hoose cali bal waxaad sharax guud naga siisaa tababarkan iyo muddadii uu socday iyo ujeedooyinka ay dawladda hoose ka leedahay. bismillaah walaal tababarkani wuxuu soo socday muddo soo socday. barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay oo la yiraahdo geed socodka ama wiiga badbaadada caasimadda oo ugu talagalnay wiig baynaan barnaamijka soo qaadano oo socda oo geed socod dheer iyo hayaan dheera. marka waxaanu doonaynaa inaanu ujeedkayguna uu yahay inaanu reer Hargeysa iyo nawaaxigayga inaanu barno badbaadada dabka sida looga hortagi karo ama sida la iskaga badbaadin karo dabka. waxa kale oo doonaa inaanu barno kuna wacyigelino qof kasta oo guri jooga ama gaari wada ama hodheel ka shaqeeya ama leh ama wax alla wixii la halmaalay xayndaabka soo galaba inay bartaan dabka waxa sababa. inaga markaad eeriideen eegto waxa ugu daran waa haanta gaaska iyo dabka labada inoogu daran kuwa waxa kale waa cid dhimirkeegu maqan yahay waxa saas ciyaali waxay gubaan waxaas laakiin ugu badan waxa weeyaan waa inta. hadda waxaan doonaa bulshadu inay barato waxa dabkaas lagu daweyn karo. dabku markuu gubto waxa lagu daweyn karo awliyaa daweyn kara ama xallin karayd oo dabdamis ku mayd. imika waxaan rabnaa inuu level gurigii tago ugu horeyn intaan dabdamis loo baahanin in adigu aad badbaadin karto gurigaaga aad badbaadin karto ehelkaaga ciyaalkaaga jaarkaaga. maxaad ku badbaadin kartaa? waa haamaha yaryar ee meelahan yaala aynu xayeysiiska u haysano guriga hortiisa ugu dhajsanayno xayeysiis tayba maaha. waa haantaa yar oo aynu iibsanayno ood gurigaaga ku xidhanayso ilaa gaarigaaga iskuulkaaga albeerkadaada hodheelkaaga kaad wax ka cunayso meeshaa doonta xafiiskaaga dhiganaysaa. waa 3 qaybood oo kala duwan wax weynba mahaba midba xaaladda kugu timaado umad ku daweynaysa. shirkadda saafka ku haysa wax weynba mahaba iyo shirkadaha kale la halmaal magaalada ku yaala. waxa weeyaan si uu barnaamijkan u kaco oo uu dhaqaaqo ay shirkadda saafko ay qayb ka noqotay shirkadaha barnaamijka nagala shaqeynaya in ay doorkeega ka ciyaarto si dadku ay u bartaan oo iyagu si mutadawwac noola shaqeynaya. markaas waxay noogu dareen capacity building shaqaalaha dawladda hoose ee xafiiska maareynta khataraha inay nala dhisaan. waanan uga mahadnaqaynaa wax qaranka aad u geliseen weey. waxa weeyaan ujeedadayadu haddaanu nahay caasimadda Hargeysa anoo ku hadlayna afka golaha deegaanka afka guddiga fulinta afka maamulka mas'uuliyiinta gudoomiyaasha agaasimayaasha degmooyinka iyo qof kasta oo dawladda hoose Hargeysa ka shaqeeya. anagu afkooga ku hadlayna ujeedkaygu wuxuu yahay in haamaha dabka lagu badbaadiyo laga helo meel walba oo Hargeysa ka mid ah. ujeedkayga labaad waxa weeyaan sida haamaha gaaska loogu iibiyo dukaamada loogu iibiyo hortooda loo dhigo kuwana in la dhigo dukaamadaasina iibiyaan. maxaa u diidaya? meeshii ku habooneed ayuun baan injineerka iyo maxaa la yiraahdaa khabiirkan kala jan doona la dhigi lahaa. macadceed baa mahar baa maxaa loo sameeyaa ma gudaha la dhigi ma dibad baa la dhigaya aqoonteedu man inta kala tashanaa mooyaane awaamiir baan ka soo saarinaa. waxa kaloo jira barnaamij isaguna hadda socdo oo aan ugu talagalay in wax lagu baro dadka wacyigelin iyo barid labadaba. marka barnaamijkaas waa wiiga Hargeysa barnaamijka la yiraahdo oo geed socodkayga qayb ka mid ah oo wiigba aan wax kastaan horeba kugu sheegaan ka dhigno. waxaanu isagana ku qaadan doonaa wiigaas waxaan iskugu yeeri doonaa dhammaan stakeholderska caasimadda Hargeysa waxa la yiraahdo khatar ama halis noocay doonto baa noqotay qaybun ka soo gala ee dib ku keena. shirkadaha xashiishka ha noqoto kuwa xoolaha qala ha noqoto kuwa dabka kuwa haamaha gaaska iibiya kuwa dawooyinka keena kuwa sunta xoolaha iyo maarta dhirta iyo daaqay xoolaha whatsoever inuu ka soo gala ayaan hore aan iskugu yeedhno halkan aan fadhnaan iskugu yeedhnay mar labaadna waan iskugu yeedhinaa oo wixii qodobadii shirarkayga hore ka soo baxay ayaanu sii wadayna oo saafkana qayb ka mid ahayd. oo already waanu sameynay WhatsApp group bay leeyahay kulamaanu leenahay waxaan ugu talagalnay barnaamijkaas uu noqdo barnaamij waqti dheer qaata oo istaagin. barnaamijkaasi waxaanu kaga hadli doonaa maadaama reer Hargeysa ay yihiin qaybihii meel ka soo galayay
haddaba ciddii kale iyaduna daweynaysa baan iyaduna u yeedhina way ka mid yihiin shirkadahan keena haamaha gaaska haamahan dabka lagu baktiyo ama lagu badbaadiyo barnaamijka markaa waa barnaamij taxan ah oo weligii mid istaagay maaha ilaa intaanu ka helayno hargeysa dabka ka caagan hargeysa dadkeegu soo jeedaan hargeysa guri walba haanta ay taallo hargeysa gaari walba haanta ay taallo hargeysa xafiis walba ay taallo ilaa aanu gaarina ma joojinayno waxa kaloo iyaduna iminka qorsheegu iyo shaqadeedu socotaa barnaamij aan ugu talagalnay inaan qofka sharci la siin karin ilaa uu ku soo daro dhismahaysa ama qaab dhismeedka guriga nidaamkii dabka badbaadada dabka uu tuubooyinkii qasabadii soo geliyo simbali wax walba mahaba gurigaaga almisow qasabadii biyaha kuugu jirta leyrkiina uu kuugu jiraa maalintaad gelinaysa leyrkaaguma tuumbadanaad gelinaysaaba tan dabka wax weynba mahaba waa qasabada biyaha oo kale un wuugu talagelayaa injineerkii guriga ku dhisay xataa injineer weynba uma baahna bale markaaba dhigi karaba taana dadka waanu sheegi karnaa balamaradaan u sheegi doonaa injineerada dhismaan u sheegi doonaa marka waxaan ugu talagalay taana in hadhow tolo mustaqbalka weli lama ansixin laakiin waa qorshayaasha noo yaala eenu dabka ka leenahay si gurigan hadduu uu dhaco dee dabkan isaguma basbaktiinayaba wax weynba mahaba waxmaa lagu xidhan kuwii alaarmiga ahaa ee dabka sheegayay qayliyey kuwii qiiqa urinayay wax weynba mahaba waxa kale oo noo qorshaa noogu jirta iyadana inaanu maxaa lagu yidhaahdaa aanu samayno dabka guryo waxa jira hore oo fooqya ah oo qaarkood isku leeyihiin oo maanta aan lahayn qalabkii badbaadada kaas qalabkii badbaadada aan lahayn maadaama oo aan la gelin karin la dumin karin tuubooyinka aan la gelin karin maxaa loo qabanaya ka haddaba ka qaab maanuwala ama qaab gacan ama dad sameeya ayaanu loo samayn doonaa qaabkan waanu bari doonaa khibradeedii waanu haynaa aqoonteedii waanu haynaa simbali waa waxaynu samayn karno reer hargeysana shaqa abuur bay noqon doontaayo qolyihii tawaangidii samayn jirna shaqa uga soo baxaysa qolyihii farsamada keeni jirna shaqa uga soo bixi doonta kii tuubada iibin jirna shaqa uga soo bixi doonta macnaha waxaan siin doonaa nooca iyo dhisaynka iyo qaabka uu u samaynayo kaliya tuma siinayna marka halkaasay uga soo baxaysaa waxa kuugu jira iyaguna kaalmaha shidaalka ee magaalada qorshayaasha noo degsa waxaa ka mid ah kaalmaha shidaalka ee magaalada hargeysa ku yaalla ma leeyihiin mise ma laha halkan kaga jawaabi maayo halkan kaga jawaabi mayno laakiin waxa noo qorshaysan wixii lana way leeyihiin wixii aan lahayna qaabka maanuwalkaa loo samayn doonaa haamahan gaaska haamahan waxaan leeyahay badbaadada dabku waa meelaha ugu horeeya kaalmaha shidaalku oo asasmana hadda socda oo tiimanbaa ku jira oo ka shaqaynaya xogtaas markay soo dhammaato ayaan la wadaagi doonaa wixii natiijadeeda taasna ka hor dhici mayno marka go'aamaha iyagana ka soo bixi doono wixii xal laga yeeli doono waxa kuugu jira iyaguna suuqyada magaalada hargeysa ku yaalla suuqyada magaalada hargeysa ku yaalla dhammaantood waanu soo qiimaynay tiimamka xafiiska ayaa qiimeyn ku sameeyey waxa magaalada hargeysa suuq ku yaalla oo dhowr iyo 20 suuqa dad badan baa oran doona dhowr 20 suuq bal hargeysa kuma yaalaan dhowr iyo 20 suuq oo degma oo xaafada oo qayba ayaanu assessment ku soo sameynay oo nu sawir ka soo qaadnay oo nu soo marnay kaana waxaanu wixii go'aamo aanu guddiga fulinta aanu isla qaadano ayay guddiga ka soo saari doonaan go'aamo marka iyagana qaabka loo isticmaalayo wayagana haddii aanay lahaynna waa maanuwalkii baa loo samayn haddii ay leeyihiinna way leeyihiin suuqyadu oo qaarkood way leeyihiin aadna way fiican yihiin qaar weliba abaabulin baa ku jiro oo habaysan oo nidaamsan maaragtay oo aad u fiican yihiin kuwaa leh way leeyihiin kuwaan lahayna waa loo samayn doonaa qaabka maanuwalka iyo qaabka maaragtay emergency-ga ee haamahan maaragtay degdegaaba waayo suuqyada waxay dawladdu leedahayna waa in yar kuwa shicibku leeyihin baa ka badan almiso waxa qorshaha noogu jira
haddaan ilaa maanta israa uga sheekay de macna waa barnaamijyo taxana oo maalmo dhan bay qaadanaysaa marka annaguna saan warku noo kala bixin waanu ku yaryarayn doonaa oo badbaadada maartay disasterska waxaan lagu yiraahdo maanta intii dabka weyn ka hadlaynaa haamihii baa ku jira waxa ku yaala maxaa lagu yiraahdaa iskargooyinkan iyo booyadaha iyo kuwana iyagana barnaamijyadiina sayid ku fiicnaadaan maalmo qayban ka dhigan doonaa marka waxa weeyaan iyaguna ujeedka guud waxaan bari doonaa oo qaybta educationka ama qaybta waxbarashada ee wacyigelinta dhinaca socota waxa weeye annagoo halkayga u dambaysaa tahay inaan iskuulada tagno oo waxbarashada heer hoose kaga soo bilowno oo weygii maalinka khamiis oo kale aanu u dhaxmari doono annagoo wasaaradda macallimiinta iyo maamulka dhaxmarayna in aanu maalinka aanu hal maalin weygii aanu siino hal xiisad oo maartay tababarka ku saabsan san ardayda dhibaatadiisa iyo maartay marka waxa noo yaala oo muhiima qaabka waxbarashada iyo wacyigelinta hoos dhinac soconaya marka waa ilaa dugsi hoosaan marka ka bilaabina waxa weeyaan waxaan soo raacin doonaa habraacyadii haanta loo isticmaalay haanta sideeba loo isticmaalayaa goorma la shidaa halkee laga shidaa halkeeba la dhigaa halkeeba lagu rakibaa maxay qabataa goorma la isticmaalaa waxa soo dhan waa lagu soo dhijin doonaa waa barnaamijkan wiiga soo socda halku dhagyada aan uga golaynahay qaybaha ka simadeen haamaha gaaska ee guryaha lagu shito sida loo isticmaalaa miyay gubataa miyay qaraxdaa haantu dadku waxay san qaraxday qaarba hoosayna gubato qaarba hoosayna gaas dabkan waxaan gubto oxygen ay tahay waa nidii la wadaag waa nidii sheegi doonaa adigoon dabdamiskii gaadhin waxaad ku sii qaboojin karto ku qaban karto ee ugu horeeya inagu macallimiintii khibrada iyo aqoonyahanka kaashan doona waxaanu samayn doonaa maxaa lagu yiraahdaa nidaamyadaasna guideline loo samayn doonaa markaad iibsanayso gaas la dambe ka iibin maayo ilaa qaabkii loo isticmaalayo haanta dabka iibsan maysid ilaa ilaa qaabkii waxa weeyaan dhammaan tiimamka shirkadaha gaaska keena iyo haamaan badbaadada dhammaan waan ka wada socnaa shirarkan tiimka network waxay ku jiraan maxaa la yiraahdaa systemkii ku jiraan marka wacyigelinahan waan wada wadaagi doonaa annagoo hal mid ah annagoo marna shicibkii iyo ganacsadii dawladdiya oo baaralala oo barnaamijkii tarabalbiga oo dadkii bulshadii ay maartay annaguna adeega u sameynayeen la hadlayna wuxuu sheegayna waanayna waa barnaamijyo toosa oo taxana ah oo aan dhammaanayn oo aan maanta iyo bari iyo bishan iyo sanadkii midna dhammaanayn oo socon doona oo ilaa iyo aynu helayno Hargeysa dabka ka caagan waa wadaynaa qof kasta oo reer Hargeysa oo meel uun degan mas'uuliyad buu yeelan doonaa mas'uuliyadu midna waa mid uu gacantiisa ku fuliyo midna waa mid looga baahan yahay haddii uu arko oo shaqadan mas'uuliyad aanu lahayn inuu isagu shaqadii wax kaga qabto halka hadduu wadada marayo kii dhagax wadada dhigaynu ku ka daay isagoo kaba shaqeyn baa shicibaba marka waxaan soconaa waa barnaamijyo geed socdo dheer marka waan ka mahadnaqaynaa kulankiina iyo boqoshadiina waxaan uga mahad celinayaa macallinkii tababarka bixinayay Professor Mixille oo waqti siiyay waqti nasgaliyay aanu maanta aanu isku aragno inaanu istaagnay ama aanu gurguuradkii uu soo yarstaagay soo bilaabayno isagana waxaan leenahay naga tagin wixii aan kaaga baahno waan kugu yeeran doonaa saaxiibkay Cabdisaaq oo isaguna de barnaamijyadan raggii ugu horeeyay ee u soo bandhignay ee qorshayaashii markaan abaabuleynay aanu kala tashanay ee soo dhaweeyay ee nagu dhiiri galiyay ee tiimanka la isku yeeri kara raggii fikrad wax ku lahaa ahna waan soo dhaweynaynaa barnaamijkiini adiga iyo asxaabtaadu aad soo jeediseen uu guuleystay maalintii saddexaad ee macnaha barnaamij qabanno weyn ay marayna marka taasna waa wax taariikhda iyo magaalada Hargeysa qiri doonto oo wax magac la idin ka sameyn doono waa wax umadiini aad ugu hiiliseen oo waxaan aad ka shaqeynaysan baa waa arintan waa arin khayriya waa dab gubanay wixii aad ku badbaadinaysan waa sadaqad socoto jaariye way waa wax gubanay wixii lagu baqtiinay oo aad ka shaqeynaysan marka ilaahay idin barakeeyay kana amalkiina waxaana wiiga dambe inu gali doonana wixii hawlo waa ka wada socon doona aad iyo aad